halkan aanu ku sugannahay waa tuulada ciyaaraha ee Muqdisho Stadium marar badan waxay martigelisay ciyaaro kala duwan ilaa waqtiyo kala duwan halkani waxay ahayd goobta kaliya ay ku ciyaari jireen dhammaan ciyaartoyda Soomaaliyeed haddaba intaynu ku gudajino warbixintan waxaad la socon doontaan marxaladii uu soo maray garoonkani iyo sidoo kale qaybihi kala duwanaa ee uu ka koobnaa garoonkani markii hore garoonka Stadium Muqdisho waxaa mar gacanta ku hayay al-shabaab 2011 ayay ka baxeen waxaanay markaasi fadhiisimo u ahayd ciidamada Amisom xukuumaddii ra'iisul wasaare Khayre ayaa bilowday qorshaha dib u dhiska iyadoo kaashanaysa midowga Yurub iyo Norway qaybaha dib u dhiska lagu sameeyay waxaa ka mid ahayd qaybta kubadda cagta taarabuunka qolalka VIP-da iyo qolalka nasashada ciyaartoyda marka ay ka soo baxaan garoonka qolalka labiska iyo qaybaha orodka Stadium Muqdisho waxa uu martigeliyay ciyaaro waaweyn tan iyo markii dib u dhiska lagu sameeyay waxa ka mid ahayd ciyaartii horyaalka ugu xamaasadda badnayd qaybo kale oo ka mid ah garoonka waxaa hadda ku socda dib u dhis iyo habayn waxaanay tani meesha ka saaraysaa baahidii ay u qabeen ciyaartoyda ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxa uu martigelin doonaa koobka degmooyinka oo markii ugu horeysay ka kooban 17 degmo taasi oo diyaar garowgeeda aad looga dareemayo caasimadda Soomaaliya Muqdisho halkan aan ku sugannahay waa tuulada ciyaaraha ee Muqdisho Stadium Jibriil Xasan Fariid ayaanu chance soo helay waa mid ka mid ah legends-ka taariikhda kule ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho in badanna ka soo ciyaaray qaranka Soomaaliya ayaa tahay kooxo kala duwan oo ka dhisnaa Jibriil daawadayaal badan baa halka daawanaya soo dhawow ugu horeyn bal waxaad ka barbixaysaa marka koobaad bal marxalka kala duwan ay kubadda cagta soo martay inaad heerka ka timaadid بسم الله الرحمن الرحيم أنا مجلس بالله جميل حسن رنتي waxaan maanta joognaa garoonka Stadium Muqdisho waxay u soo boqday saaxiibkay Sikriye runtii saaxiib sare wax ku salaamaya Muqdisho Muqdisho runtii waxaan maanta meeshaan u sheekeynaa waxay tahay ciyaarihayga kubadda cagta oo ka gaar heer sare kubadda cagta maahan meel sare inaad ka gaarto si ma fudud inaad heer qaran ka gaartid runtii wax kasta u baahan dadaal iyo joogto u baahan tahay dadaal iyo joogto aan galshan waxaan ka gaar heer sare iyo magac sare aan sameeyay Jibriil marka laga yimaado maxaa ka caawiyay waqtiga adag baad soo martay waqti ay ka adkeed Muqdisho xilligan waqtiyaad ku ciyaarayseen wala aan chance u helin halkan waqtiyada aad ku soo ciyaartay wallahi dib u celi xasuustaada wallahi been maan waxaan ku ciyaarjin garoon ku yaala hadda jaamacadaha oo markii 2011kii waxay ahayd soo bacaade runtii waxay dhibaato aad u weyn sidoo garoonkii 9 saac marka garoonka maadid waxaan arkay garoonkii markii la toosinayo la qurxinayo godad iyo hadda markaas beerta jaadka la jirjada lagu jiray runtii markaas la xaqo hore ku jiray haddana wax kasta isbedel ay sameeyaan oo saddex garoonku waxa waaye coos macmal lagay runtii waxa waaye marba markii stress wal isbedel badan dhacay dhalinyarada chance ka helayna halka ku ciyaaraan quruxda badan leh iyo idinka waxa farqiyeedii dhaxeeyay waqtiyada kala duwan ee soo martay wallahi farqi aad weyn u dhaxeeyay sababtoo tahay anagu waxaan ku soo ciyaarnay meel rafadsan oo horyaalkan ku soo ciyaaraynay ana qabto horyaalkii hadda waxa iska jira garoonkii weynka iska garoomada yarka xaafadiya waxa waaye roob oo coos macmal yaala runtii waxyaalo badan nagu dugnaa doona dowladda ciyaartoyda yarka soo baxayso Jibriil chance baad u heshay inaad maran fanaanada Soomaaliya ma qarankaaga aad matashid waxyaabihii kula yaabka badnaa ee ka soo maray bay ahayd ma xasuustaada dib u celi sidaba chance kan ugu heshay adiga si muxuu kaaga dhignaa wallahi horta kubadda cagta waxay tahay markaad adiga aad inaad heermar ay gaarto baxir ay gaarto aad jeceshahay waa inaad joogti iyo dadaal fara badan aad gelisaa runtii anigoo yaraan kubadda cagta jeclay runtii aabayna qol sports la naxariistay waxaan aabay ugu dhiirigeli jiray markasta kubadda cagta inaan heerka gaaro markasta aan qaban jiray tababarku ugu jiray runtii heer saraan gaaro oo magac aad ugu sareeyo hadda aan ku leeyahay waddanka Soomaaliya qaranka Soomaaliya waxaan baxay in badan aan baxay wallahi inta kuma soo goor ugu 20 mar waa baxay qaranka Soomaaliya maxaad leedahay ma ka gaadhay kubadda cagta hamiga aad ka lahayd markii aad soo gashay garoomada iyo maanta oo halkii ugu sareysay aad ka joogtid adigu shakhsiyan ma isleedahay waad ka gaadhay halkii ugu sareysay aad kubadda cagta waxa laga gaar waxa waaye inaa heer qaran inaa ciyaarto qarankaada u ciyaarto Soomaaliya qaranka daamada shidna maran meesha ugu sareyso oo dareem kartaa marka adiga kubadda hoos ku soo bilaadid meesha ugu sareyso la tago waxa waaye xul qaranka Soomaaliya ciyaarto qaranka daahirtana wax kale oo ku dhiman ma jirto maanta chance waxaad u heshay inaad tababaro noqotid oo mid ka mid ah degmooyinka ugu awoodda badan leh baad tababaro ka tahay maxaad rajaynaysaa maadaama kubadda cagta aad ka fadhiisatay oo fiilkii sugayo tababarnimo kooxdan ama degmadan aad maanta hogaamiyaha u tahay muxuu kaaga dhigay tartanka furmay والله دقمة هو ذاك عن كذا دبي سبورت ساكاي كذا دقمة عن قابلنا رنتو عن جعل لاينا وحياة بدل سكبت الدم دلوي لايرا
oo kubadda cagta markaad adiga soo bilaad meesha taagnaamist marka ciyaartooyda naga yar soo baxaysan aan jaanis siino oo waqtigooda ay ka faa'iideystaan jaalna haduu la yiraahdo rajayn teleg baad ka qabtaan inaad ku guuleysan doontaan koobkan degmooyinka والله دقم كاستو عجاشة هذه لبعضهم دقم كاستو قبل سو لبعضهم كاستو دقم قف كاستو عجاشة دقم كاستو نقاط قف أو جوتي ذا لقف كاستو قلنا أنا كانوا حنجالنا قال هذا أنا خالنا قال ما أقصر يسوق الدون دولة إيراه ودماينتي تاجرياش هذا هو دقم هذا يجودهان عد كاستو مقعد يبقى قرن ساعين هل كان حركة تجسا دمان وحلا تاجرياش شيء عد كاستو مقعد تقانو وحلا وما سنتين مركز الجوان وحلا هاي مركز وقتي أنا سوري سن أدي وما سنتين